boqolaal ka tirsan ciidamada jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo jawxo ayaa maanta gaaray magaalada Jigjiga ee dowladda deegaanka Soomaalida. laba diyaaradood oo siday ciidamadan oo ka soo kici tintay dalka Eritrea ayaa gaaray Jigjiga halkaasi oo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen dadweynaha mas'uuliyiin iyo xubno ka tirsan jabhadda oo ku sugnaa magaalada Jigjiga. markii ay ciidamadani ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee Wiilwaal, jawigu sidan ayuu mar qura isu bedelay. kale magaalada Jigjiga waxaa dhex wareegayay baabuur ay wataan dadweynaha oo si weyn uga qayb qaatay soo dhaweynta ciidamada jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen oo tababar ku soo qaatay gudaha dalka Eritrea sanadihii ugu dambeeyay. dhanka kale maamulka Somali State ayaa sheegay in ay u qaban doonaan xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayo ciidamadan iyo guud ahaanba mas'uuliyiinta jabhadda oo in muddo ah ku noolaa wadamada dibadda. mas'uuliyiinta ururka ee ku sugan dalka Eritrea ayaa dabayaaqada bishan gaari doona magaalada Jigjiga si loo ambaqaado dhaqangelinta heshiiskii dhex maray iyaga iyo dowladda Itoobiya. Cabdi Saxane Cumar oo abaanduulaha ONLF ee ka howlgala gudaha Ogaadeen ayaa laanta afka Soomaaliga ee BBC-da u sheegay in ay mabda'a iyo fikirkii ay wateen uu ahaa in ay u halgamaan danta shacabka ayna ku rajo weyn yihiin inay gaaraan guusha. sidoo kale Saxane ayaa wuxuu sheegay in ayna wax dhibaato aysan dhex mari doonin iyaga iyo ciidamada dowladda deegaanka Soomaalida ee loo yaqaan Liyu Booliska, kuwaas oo sanadihii ugu dambeeyay dagaallo kulul ay ku mareen gudaha Ogaadeen. dowladda Itoobiya ayaa ururka ONLF ka saartay liiska argagixisada si loo ambaqaado dib u heshiisiinta nabadda iyo isbedelada ka socda dalkaasi. ururka ONLF ayaa 10 sano dagaal kala soo horjeeday dowladda Itoobiya iyaga oo u dagaalamayay madax bannaanida deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ku hoos nool. Every